arrintan ay dhacday arrin fiican aan fiicnayn ayay ku dhaqaaqday marka waxaan rajaynayaa arrintan inay wax iska bedesho waayo maxay leedahay wadatashi aan jirin meeshaan wax ma ka soconayo waayo dowladda federaalka ciida meesha hoggaanka sare ciida ah inay wadatashi samayso la tashato dowlad goboleedyadeeda go-aanka markay gaaraysa go-aan masiiri ee waay kan waayo cunug dhan oo noloshiisa in la badbaadiyo u baahan hadday imtixaanka go-aan ka qaataan annaga wax raalli aan ka naqanayna ma ahan arrintaas goodax barre wuu ku fududaaday wuxuu lala tashtay dadaan aan mas-uuliyaddaasba shaqo ku lahayn dowlad goboleedyada lama tashanin annaga go-aankana ma soo siinin si toos ee mediagu soo dhigay facebookyada sida codkiisu media usoo dhiguna u yaala imtixaanaadka media iyo social media annaga waxa waaye go-aan waxaan qaadanaynaa 3 maalmood imtixaanka la qaaday sidooday noogu taagnaanayaan 2 maalina dhiman 4 maado dhimanna waa inay dib usoo saxaan waayo dowladda fashil siyaasadeed iyo fashil imtixaaneed ku yimid annagana raalli kama naqanin haddii lahayn wasiirku wuxuu yidhi gabi ahaanba waxaa la baabi'iyey 3 maalmood ee lasoo dhaafay maadooyin la galay ee 6 ahaa imtixaan cusub iyo 27 bishaan ayaa loo badalsan yahay bal go-aankaas waa keligii go-aan oo annaga ma qabna ma ahan mana nala tashanin go-aankaas waa asigay u gaartaa taas go-aankeeda annaga ma wada qabno waayo maxay leedahay dadkan juhdi ay soo geliyeen nafar ay soo geliyeen bil cibaada lagu jiraa waqtiga 27 uu ka dhigayna waa maalmihii ramadaanka ugu fadliga badnaa oo la cibaadaysanayay oo u diyaar garoobayeen maalmaha farxadda ciida ah marka maanta imtixaan lagu mashquuliyo ardayda Soomaaliyeed ardayda koonfur galbeed annaga diyaar uma nihin mana ku taageersan arrintaas go-aankaas asiga keligiisay ku kooban tahay dood badanna waa ka qabnaa insha Allah tacaala go-aan adagna waa ka soo saarayna arrimaha imtixaankan haddii lahayd hadduu wax bal go-aanka hadda koonfur galbeed ee adiga hadda qaadatay ma idinla qabaan maamulada kale ee haddii ay jiraan wax xiriir idinka dhexeeya wasiirada waxbarashada ee maamulada kale ma jiraan wax xiriir madaxweynaha Hirshabelle go-aan uu ka qaatay arrimaha imtixaankan wasiirka Hirshabelle saasoo kale kan galmudug kulley maamulada waa iska warqabnaa laakiin annaga ka shaqsi ahaan ka koonfur galbeed ahaan qowdka Soomaaliyeed oo maanta 12 sano imtixaan kusoo rafaadayay oo imtixaankii shahaadiga ah in qalbigiisa dhaawac la gaarsiiyo annaga diyaar uma nihin diyaarna uma naqanayno maamulada iskuulada annaga waa wada fariisanay macallimiinta waa wada fariisanay waxaan isku afgaranay arrintan goodax uu ku dhaqaaqay inaan raalli ka ahayn bal haddii mar wasiirkii uu ku dhawaaqay idinkiina go-aan kala qaadateen ardayda hadhow shahaadada xagee ka heli doonaan shahaadada ha iska haystaan haddii dowladda lagu xujeeyo arrimaha shahaadada weligiisba cunugan shahaado la-aan uu ahaa go-aan kalea laga gaara imtixaanka dib ha loo dhigo dib damba kale ha loo qaado hadday tahay hata laakiin isla bishan sideeda 10 maalmood gudahooda in wax la saxo weligay waxaan arki jirnay 2 imtixaan 3 imtixaanaan diyaarin jiray hal hadduu fashilmo kan labaad hadduu fashilmo kan saddexaad marka wasiirka asiisay ka naqatay waa kasi la'nahay waxaana caqabad ku ah kuwa ka hoos shaqaynayo wasaaradda waxbarashada oo agaasimaha ugu horeeyo wada shaqayn fiicanna mana geli doonaan kuwaas wasiir dawlaha mar uu hadlay wasaaraddan sideeda warqad ay soo saartay waxay sheegtay imtixaan markuu bilow ahaa in uusan jirin wax qish la yiraahdo wasiirkina xalay wuxuu qiray in qishka 6 maado ee la soo dhaafay ay baraha bulshada dhaxyaacayeen wasiirka asigaba waa ka maqnaa waddanka ma joogin maalintu imaadayna maalin labaadkeedana go-aankaanu iska qaatay asoona la tashinin dowlad goboleedyada marka sidaa darteed annaga waxaan mas-uul ka nahay ardayda koonfur galbeed wasaaradaha dowlad goboleedyada marka sidaa darteed annaga waxa waaye mowqifkii asiga u qaatay raalli kama nihin insha Allah go-aanna waa ka qaadan doonaa ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka ardayda ee maanta ee deegaanada qaar ee gobolada dalka ay dibadbaxyo ka sameeyaan qaarkood sida laga soo waramayo beledweyne ay arday ku dhaawacmeen qofna uu ku dhintay horta ardayda ku dhaawacantay ilaahay waxaan ugu baryaynaa bil ramadaana lagu jiraa ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo ardayda Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaasho mas-uuliyiin ayaa joogaan oo idin doodayso oo xaq u leh inay la hadasho wasaaradda federaalka ah annagana waxaan ugu baaqaynaa ka koonfur galbeed ahaan in banaanbax aysan jirin wax foodo aysan jirin wax israsaasayn aysan jirin ilaaha ku xamdinaynaa ku shukrinaynaa arrintaas meel fiican ee noo martay haddana waxaan rajaynaynaa inta noo dhimana si tartiib leh haddii noo ogolaadaan dowladda federaalka ah hawshan inaan dhammaystirano si jawi degan qurux badan oo cadaalad ku dheehan tahay inay noogu dhammaato haddii ilaahay inay noogu وافي جنرال تريدنج كامباني waxay ciid sanadkan ilmahaaga u keeneen dharka Amira Collection ilmihii loo gado dharka Amira Collection baa farxad ku ciidi karaya